madashani oo ay ku sugnaayeen wakiilada jaamacadaha oo ay ka bartaan ardayda Soomaaliyeed ee wadanka Uganda ayaa waxaa shir gudoomiyay gudoomiyaha ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda Cabdiqaadir Cumar Cabdilla Fiidka kulankan ayaa looga hadlay ajandayaal dhowr ah waxaana diiradda lagu saaray suurtagalnimada tirakoob rasmi ah oo lagu sameeyo dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Uganda intaas kadib wakiilka ardayda qaranka Soomaaliyeed ee Uganda Cabdiqaadir Fiidka ayaa wakiilada jaamacadaha ku amaanay hawsha ay u hayaan ardayda waxa uuna bogaadiyay guddiga dardargelinta tirakoobka ardayda marka hore waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo runtii hawsha wanaagsan ee u haysaan ardayda Soomaaliyeed ee aad runtii gudoomiyaasha ugu tihiin ama aad ku matashaan jaamacadaha runtii aad ka socotaan oo arday badan oo Soomaaliyeed ay wax ka bartaan hawsha waxaana idinkula si haddii alla idinku sii dhiirigelinayna horta inaad shaqada halkeeda ka sii wadaan dabcan waana wada shaqeyn doonaa haddii Allah awood laga helo haddii aynu nahay ardaydii qaranka Soomaaliyeed ajandayaasheena inoo hirgalay waan isbaranay qaabkan ku wada shaqeyn lahayn iyadana sidoo kale iyo arinta tirakoobka iyaduna aan ka hadalnay runtii waxaan aad u soo dhaweynayaa walaalkay Maxamed ka Foundation University walaalkay Victoria University ka socda oo runtii almost hadda number fiican wax fiican oo lagu farxaa in la wadaago ah inay la socdaan cadadkii ardayda halka jaamacadda wax ka baranaysay insha Allah waxaan idinka marka codsanaynaa inaad si dardargelisaan oo gudiyada jaamacadihiina aad arintaas la wadaagtaan oo aad dardargelisaan hawshaas iyada ah in tirakoobka cadadka ardayda jaamacadaha mas'uuliyadda ugu tihiin ardaydeena Soomaaliyeed inaad soo ogaataan oo tirakoobkii guud gudoomiyaashii adikoo wakiilada ah in tirakoobka sidaas oo runtii inoogu bilowdo wixii maanta ka dambeeyo insha Allah ayna ka wada shaqeyno ugu dambeyntii Bakar Cali oo ah gudoomiyaha ardayda jaamacadda KIU Kampala International University ayaa warbaahinta la wadaagay qodobadii kulanka ka soo baxay kulanka waxaa looga hadlay saddex qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa inay isbartaan gudoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed iyo dalladda ardayda qaranka Soomaaliyeed sidoo kale inuu noqdo kulan looga hadlayo qodobkiisa labaad ahaa wada shaqeynta sida u yeelan lahayd gudoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed dalka Uganda iyo dalladda ardayda qaranka Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu ahaa arrimaha tirakoobka oo qodobkii saddexaad ugu muhiimsanay oo laga hadlayay ay ahayd maadaama la rabo in ardayda qaranka Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan inay maaragtay la sameeyo programka one man one vote runtii aad aan ugu faraxsanahay wuxuuna ku soo dhamaaday si sharaf leh oo qiimo badan oo guul ah gudoomiyaashu intii ay fikradooda iyo karaankooda ahaayeen waxay ugu warbixiyeen wixii xog ogaalnimadooda ah ay ka hayaan systemka ardayda dalka Uganda sidoo kale waxay gudoomiyaashu iyo dalladuba isla soo meel dhigeen oo maaragtay si fiican uga niqaasheen sidii loo wanaajinayo xiriirka ka dhaxayda ardayda midowga qaranka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ardayda wax ku barata dalka Uganda aad aan ugu faraxsanahay inuu xiriirkan noqdo mid joogto ah wadaagay qodobadii kulanka ka soo baxay Cabdinajiib Maxamed Caano dalka TV Muqdisho